gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland qareeno garsoorayaal iyo ku-xigeenka xirilaaliyaha guud ee qaranka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda gobolka Awdal oo maanta socdaal ku tagay xabsiga dhexe magaalada Boorama ayaa waxay mid u wareysteen maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe waxayna halkaasi ka soo daayeen tiro maxaabiis ah oo loo haystay kiisas kala duwan inta ka bacdi annaga oo jeelka ku jirna laga sii daayay waan salaam kadib waxaan si gaar ah u salaamayaa taliyaha ay jeesha oo si fiican noo hayay waxa kale oo salaamayaa oo si gaar ah waliba u sii salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda iyo waftigiisa oo maanta oo bishu tahay dhowr iyo toban naga fasaxay 18 ay naga fasaxay jeel gudoomiyaha noo soo celiyay gudoomiyaha maxkamadda iyo waftigiisa waftiga ayaa si gaar ah isla salaamaya waxa kale oo salaamaya gudoomiyihii la soo xukumay isaga laftiisa hadaan uu soo xukumin laba kala cabsooday wax kala soconayaan ma jireen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo waftigu hogaaminaya ayaa sidoo kale waxay saaka u fadhiisteen dhageysiga dacwadaha bulshada gobolka Awdal ay qabaan iyadoo saacado badan qaatay ee gudoomiyuhu waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso dhageysiga dacwadaha ay bulshadu qabaan waxana uu sheegay horta marka hore saad sheegtay waxaanu maanta shaqo ka bilownay gobolka Awdal iyo selal iyagoo maxkamadda sare ay maalmahaaba naga soo horeysay oo iyagu dacwado badan ku qaadeen meelo badan booqdeen laakiin maanta anaguna waxaan ku soo biiray anigoo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiley baan ka nimi shaqadii waan bilownay saad sheegtay xabsiga waan marnay dad badan baan ka sii daynoo laakiin u xidhnaa ganaaxyo rafdo qaran ku leeyay oo aan awoodi karina oo dad dan yar ahaa waxa kale ku jiray dad rafcaan ka dhacay oo u jeedinay waxa ku jiray dad xaalad gaar ah dacwada madaniga u xidhnaa oo aanu ku niri iyagana hal xaliyo ha ka heshiyaan si xadgoodu maadaama dhoodaan ugu sii jirin marka taa xabsigan waan ka fududeynay dadkan waan u fududeynay waana sababtaan u nimiba markaanu xabsiga eegnay aanu dhex galay aanu baadhnay ayaanu ogaanay marka xaaladii markaan ogaanayna go'aanaanu qaadanay waayo waa garsoorka halkii uu sareeyay marka wax loo noqonayaana ma jirto Hargeysa ku xidhan waxa timi cabashadii waadiga arkayay duubateen way buuxday way dhamaaday saacada ilaa koodii duhurnimo laga soo bilaabana cid alla weydii ka ku qabta kamarada cid alla cid la qaabila la waayay wanaga anagu u dhanay fadhina madaxdii gobolka oo dhan hal qof oo maanta cabanayo maanta ahaan dadkii noo yibi iyagii baa la waayay dadkeenu meelaha marmar bay ka hadlanay dhaahdaan cidna qaabishaan weyna anagu cid aanu qaabilo cid aanu qaabilaan weyni koodii laga soo bilaabo Nasteexa Daawud Yarweyne Kalsan TV Boorama